raxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Asxaabey, waa walaalkiin mar kale iyo video aan ugu talagalay in aan kaga hadlo qaabka loo hagaajiyo taleefanada ama loo cilad bixiyo. Asxaabey, la socod wanaagsan. Hadeer waxaa gacanteyda ku jira mobile Itel ah. Itelkan waxaan ugu talagalay in aan idinku tuso qaabka loo hagaajiyo ama loo cilad bixiyo ama cilada ku timid in aan idin faahfaahiyo. Qof ayaa ila yimid cilad ayaa ka haysato, run ahaantii marka cilada waxay tahay marka isaga uu wax waco waxba ma maqlo, markii la soo wacana waxba ma ka maqlo. Saa darteed waxaan rabaa aniga in aan hagaajiyo oo aan ka keensiyo codadkiisii. Insha Allah tacaala setting ayaa tagaysaa si aan u ogaano bal intaanan guda gelin codadkiisa. Ayaan tagaynaa profiles, channel, kadib setting, kadib ring setting ayaan tagaynaa ama volume setting ayaan tagaynaa. Run ahaantii waxada dheere ama gaabi wax shaqeynayo ma uu laha. Waxaan kaloo isku dayaynaa in aan tagno reading setting. Waxaan kaloo kasii tagaynaa sim call reading. Waxaan kaloo kasii tagaynaa si aan u ogaano codadka ku jira fixed ringtones 1 2 3 ayaa ku jira, intaba ma uu shaqeynayaan. Sidoo kale keyboardka codad ayuu leeyahay oo marka ayada lambar aad taabato dhaqdhaqaaqaya, intaba ma lahan. Insha Allah waan hagaajinaynaa asxaabey, la socod wanaagsan. Waan furfuraynaa cashirkeena ayaan bilaabanaa. Battery ayaa ka saaraysaa. Marka labaad memory iyo sim card iska xaqiijinaysaa inaysan ku jirin. Kadib ayaad boolasha ku bilaabaysaa in aad furfurto. Marka kadib ayaad ku bilaabaysaa. Boolka koowaad waan furay asxaabey, kii labaadna waan furay. Asxaabta qaaliga ah, waxaan rabaa mobile kasta oo aan hagaajinayo in aan idinla wadaago cilad bixintiisa si berrito aad u fahantaan ciladahaas ama aan idinkaga sheekeynin oo wixii adigoo aqoon u leh lagu hagaajiyo ama aad hagaajisato. Tani waa cilad ku timid xagga maqalka taleefanka ama samaacadda. Mana aha wax biyo ama ku yimid ama wax kale ma aha. Sheygan asagoo shaqeynayo ayuu iska damage noqon karaa oo uu guban karaa. Adduunka wax aanan halaabinna ma jiro. Wax walba gacan ayaa samaysay, isla gacantii ayuuna u dambeyn doonaa insha Allah tacaala. Waa kan hadda taleefankii waa furfuray. Waxaan ogaanayaa samaacadda problemka iga haysto. Kana halkan ayaan saa leeyahay. Markaan intaan marayno oo saan u bixino samaacadda ayadana saas ay isaga bixinaysaa. Asxaabey, waa kana gudihiisa taleefankii ma uu laha wax cod ah. Taleefankan ma uu laha. Haddii aad wax wacdo iyo haddii lagu soo waco intaba midna ma lahan. Samaacaddaas out iyo inka waa kana taleefankan hadeer ma go'na oo keebaladeedii waa caadi, balse waxaan rajeynayaa in ayada iskeeda ay u gubatay. Sidoo kale waan bedelaynaa. Waxaa kaloo jira mic asagana oo codqaadaha ah. Mic waa kana, waxaa mic laga wadaa codqaadihii taleefanka qaadi lahaa iyo samaacaddii inkii outka. 3 qaybood ayay kala yihiin. Ma aha wax isku xiran ama wax isla shaqeeya ama wax isku meel ku wada dhagan midna ma aha. Marka waxaan isku dayaynaa insha Allah asxaabey inaan hagaajino oo aan wax ka bedelno oo wax ka hagaajino. Waxaana wax kaga bedelaynaa samaacadda isbeerkeeda ayaan soo qaadanaynaa. Tan ayaana bedelaynaa insha Allah tacaala. Waxaan ku bedelaynaa taleefankan isaga ah. Samaacaddiisa ayaan ku bedelaynaa. Tan ayaan rabaa inaan ku bedelo oo waa ay isleeyihiin. Tan ayaan rabaa inaan ku bedelo. Asxaabey, samaacadda keligeeda waa la cabiri karaa oo saacad waa lagu cabiri karaa. Tanna waa la cabiri karaa. Laakiin hadda meel dhow ayaan rabaa inaan idinka tuso. Tii haleysneed ayaan rabaa inaan dejiyo marka hore. Marka labaad samaacadda ii shaqeynaysay ayaan rabaa inaan soo dejiyo iyana.
tii ii shaqeynaysa ayaan soo dejinayaa, ayana halkaas ayaan dhiganayaa. waxaan rabaa marka inaan ogaado why difference-ga u dhaxeeyo labada samaacadood. labada samaacadood difference-ga u dhaxeeyo aan ogaanayna. waad ku ogaan kartaa in telefoonka aad saacad wax ku cabirto ku ogaan kartaa, laakiin batterigan ayaan hadda wax ku ogaanaynaa asxaabey. batterigan ayaan ku ogaanaynaa. samaacadan waa tii shaqeynaysay. okay, waa ay qaraac leedahay soo ma? waa ay qaraac leedahay soo ma? plus iyo minus waa shaqeysa soo ma? okay, tii haleysneed ayaan soo qaadaynaa. male wax shanqar ah male. okay asxaabey, sidaas ayaad ku kala ogaatay samaacadda shaqeynayso iyo samaacadda aan shaqeynayn. waayo batteriga ayaad soo qaadanaysaa, pluskeeda iyo minuskeeda ayaad ku aadinaysaa. waa kana plus iyo minus ayaad ku aadinaysaa, ma uu shaqeynayo. tii shaqeynaysa soo qaadaysa, waa ay shaqeysay. okay asxaabey, inaan bedelna ayaan u gudagelaynaa insha allahu tacaala. in aan ku dhejino ayaan gudagelaynaa. plus iyo minus waa isku aadinaysaa. tanna halkeedii ayaad ku dhejinaysaa. okay asxaabey, hadda waa ku dhejinay labadoodii. waa aan xirxiraynaa. okay, positionkeedana waa ay fadhidaa. positionkeedana waa ay fadhidaa. waa aan xirxiraynaa. okay, boolasha intaada ku xirin test ayaan sameynaynaa marka koowaad. okay, dabcan way shaqeysay. okay, markii hadayto aan shidaynay ma uu lahayn sound. setting markaan tagno, profile channel aan kasii tagno, setting aan kasii tagno, volume shaqeynaya soo ma? shaqeynaya. okay, hadda waa uu shaqeynaya soo ma? good asxaabey, waan ku guuleysanay insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim. aad ayaan idin salaamayaa. videoga mid lamid ah intaan kaga kulmeyno insha allahu tacaala khayr badan ayaan idin rajeynayaa. waxaana ku dadaalayaa in aan mar walba idinla wadaago ciladaha sida aan u saarayo taleefanada biidni illaahi alkariim, ilaa aan ka gaarno mobilada kuwooda waaweyn insha allah tacaala. khayr badan ayaan idin dhaafay. asalaamu calaykum.